wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya, mudane wasiir ku-xigeenka cusub, xildhibaanada dowladda federaalka baarlamaanka federaalka Soomaaliya, wasiiradii hore oo aan filayay inay nala joogaan laakiin uma jeedo hadda waa salaaman yihiin, safiiradii hore ahna la taliyayaasha wasaaradda arrimaha dibadda, xogeyaha joogtada agaasimayaasha wasaaradda arrimaha dibadda, dhammaan marti sharafta kale ee halkan joogta, mudanayaal iyo marwooyin, kulligiin waa idin salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waana idin soo dhaweynayaa. waxaan si gaar ah u soo dhaweynayaa wasiir cabdisaciid muuse cali iyo saaxiibkay wasiir ku-xigeen maxamuud cabdi xasan bekos. waxaan idin leeyahay xilka culus ee laydin igmaday, gaar ahaan waqti xasaasi ah oo isbeddello ka socdaan geeska Afrika, dunida carabta iyo dhammaan geopoliticska ku gadaaman. waxaan si niyad sami leh idin leeyahay ilaahay xilkaa idin fududeeyo. haddii aad talo iiga baahataanna diyaar baan idin la ahay. just ask. marka labaad waa mahadnaq. muddadii sanadka ahayd ee aan hayay xilka wasaaradda arrimaha dibadda waxay ii ahayd sanad aada u qiimo badan, shakhsiyan iyo shaqo ahaanba. personally and professionally satisfying. waxaan fursad u helay inaan dadka iyo dalka u adeego. waxaan fursad u helay inay dadku igu bartaan shaqada. waxaan mahad u celinayaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya oo fursaddaas i siiyey. waxaase xaqiiqo ah inaan la iska indhitiri karin in mashiinka shaqadaas waday ay ahaayeen shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta wasaaradda arrimaha dibadda, kuwa gudaha jooga xarunta iyo kuwa dibadda joogaba. waxay la tahay isu mahad celinteenna sida xogayuu sheegay iyo waa noo dambeyn doontaa. waxaanse halkaan ku qirayaa inaad tihiin halyeeyo u dhabar adeegay kuna shaqeeyey duruufo adag. sharaf bay ii ahayd inaan muddadaas idinka mid ahaado. marka saddexaad waxaa la yidhi magaalo waa madal, inta joogtaana waa marag. muddadii sanadka ahayd ee aan ahaa wasiirka arrimaha dibadda, wasaaradda arrimaha dibaddu waxay gaartay guulo waaweyn. hase yeeshee hadda ayaa dagaaladii ugu muhiimsanaa ina hor yaalaan. waxaan ku jirnaa xilli doorasho oo xasaasi ah. waa in cidda loolanka nagula jirta aysan naga faa'iidaysan wakhtiga aan annaga siyaasadeenna gudaha ku mashquulsannahay. tan dibadda waa in gaar laga hayo. geedigu waa adag yahay. rag adag oo xigmad ku hoggaamin karana waa tihiin. annaguna waa idin garab taagannahay. wasiirka fursad ayaan isu helnay si gaar ah aan uga wada hadalnay arrimaha ahmiyadda
iyo hortabinta mudan faylka aan ku kala wareegi doonana iyadoo qoraal ah ayuu halkaa ku jiraa. waxaan idin rajaynayaa guul. waa mahadsantihiin. golayaasha ka socota madaxda hay-adaha kale, wasiirada iyo danjirayaashii hore ee wasaaradda, iyo dhammaan howlwadeennada iyo diblomaasiyiinta ka tirsan wasaaradda, waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mudanayaal iyo marwooyin, marka koowaad waxaa mahad oo dhan u sugnaatay eebbe weyn, ilaahayni na abuurtay oo inoo suurto geliyey inaynu munaasabaddan isugu nimaadno. marka xigta waxaan u mahad celinayaa dhammaan howlwadeennada isku soo dubariday shaqadan iyo marti sharafta ka soo qayb galay. mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen, mudanayaal marwooyin, sida suubanaheenna uu noo sheegay salawaatullaahi calayhi wasalam, mas-uuliyaddu waa shay aada u weyn ilaahay agtiis, lana isweydiinayo maalinka aakhiro. sidaa darteed waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu uusan nagu yeelin kuwii dulmi iyo jaahil kaga sugnaaday fulinta shaqadaas. mudanayaal iyo marwooyin, ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu shaqadaas noo fududeeyo gudashadeeda waajibaadka qaranka ee naloo egmaday. sidaa ogtihiin, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa jiheeya siyaasadda arrimaha dibadda. qayb kasta oo dowladda ka mid ahna mas-uuliyad baa ka saaran kaalinta kaga aadan. xaqiijinta iyo meelmarinta mas-uuliyaddaasna ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa madaxweynuhu u wakiishay. markaasaa ra-iisul wasaaruhu u sii wakiishay wasiir ka mid ah golihiisa. wasaaradda arrimaha dibaddu waa wasaaradda isku duuda ama isku dabaridda siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkeenna, waana wejigii aan caalamka ku qaabilaynay. tan iyo markii aan xorriyadda qaadanay waxaana soo maray sida hadda naloo sheegay 29 wasiir oo iga horreeyay, isagoo mid walba door muhiima ka soo qaatay taabagelinta siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkeenna. haddaba anigoo ku kalsoon howlkarnimada iyo tayada howlwadeennada wasaaradda iyo dhammaan diblomaasiyiinta Soomaaliyeed, waxaan ku rajo weynahay in shaqada muhiimka ee wasaaraddan qaranka ay u hayso aan sii laba jibaari doono, kana sii ambaqaadi doono halka ay maanta joogto oo wasiirkii uu nooga warbixiyey. mudanayaal iyo marwooyin, sidaa ogtihiin siyaasadda arrimaha dibaddu waxay ka soo burqataa oo il u ah salkana ku haysaa siyaasadda dowladda ee arrimaha gudaha. isla sidii ayayna haddana il ugu noqon kartaa siyaasaddeenna arrimaha gudaha haddaan si aqoon, xikmad iyo waayo aragnimo, xilkasnimo iyo taxadar leh mas-uuliyadda loo gudan. waana taas mas-uuliyaddan ina saaran oo ay tahay inaan gudanno. sida aan gudashada mas-uuliyaddu uga dhabaynayno, waxaa laynaga rabaa inaan dadaal iyo shaqo dheeriya oo aan mas-uuliyaddaas iyo hadafkaas aan u gelino. sidii uu abwaan timacadda sheegay horay oo u sheegay, lama helo wadaadoo waxaan cidi u hawshaana
naftaa loo hantaaqaa waxaad haabo leedahay. shaqadaas ayaa ina hor taalla ka wasaarad ahaan waxa weeye inaan halkeedii ka sii ambaqaadno fulinta hadafka madaxda qaranka. ka wasiir ahaan waxay tahay inaan madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddaba kala taliyo siyaasadda arrimaha dibadda. sidaa darteed waxaan wasaaradda ka hagaynaa heerka uu hadda dalku maraayo oo aan u hagayno halka uu hadafkeennu ku aadan yahay ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo xukuumaddiisuba ay noo asteeyeen. taasna waxaa ugu weyn geedi socodka goor hore aan soo bilownay sida dejinta qorshihii sida rasmiga aan u bilownay 2018 haddana uu soo gabagaboobay. qorshahaas wuxuu ku saabsan yahay sidii Soomaaliya ay ula wareegi lahayd mas'uuliyadda sugidda amniga qaranka oo muddo 14 sano ay qayb badan Soomaaliya uga tiirsanayd howlgalka ciidamada Midowga Afrika iyo ciidamo kooban oo ka socda dalal aan gacan saar dhow la leenahay. Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa biyo sacbadaada looga dhargaa. waxaan uga golayaa meeshaas muhiimad iyo mudnaan weyn ayay inoo leedahay taabagelinta qorshaha ay Soomaalidu kula wareegayso mas'uuliyadda sugidda amnigeeda qaran. waxaa inoo ballana hadal yar iyo hawl badan. inkastoo aan hadalkii ku badiyey waxaan bogaadinayaa wasiir Maxamed Cabdirasaaq doorkii wanaagsanaa ee ka soo qaatay wasaaradda warbixinta oo sida maaragtay hufan oo aniga siiyey oo gaarka. waxaan u mahadnaqayaa madaxda qaranka, ra-iisul wasaare ku-xigeenka, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. waxaanan rabaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha shaqadan ay ii igmadeen inaan fulino. waa mahadsantihiin. wabilaahi towfiiq. waxaan soo dhaweynayaa walaalkeen Cabdisiciid oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu u igmadeen in uu dardar geliyo halkii ay taagneedna ka sii qaado wasaaradda arrimaha dibadda. waxaa kaloon hambalyeynayaa walaalkay Maxamed Cabdirasaaq oo muddadii sanadka ahayd uu joogay waxyaabo fara badan qabtay, shaqooyin badanna hore u dhaqaajiyey. waa sunnaha dowladnimada in hadba qof uu hago ama halka ay shaqadu markaa joogto uu ka sii amba qaado oo uu meel gaarsiiyo. waa taa imaka waa wasiirkii 10aad sidaa intiina xogaalka ahayd soo tabiseen Cabdisiciid. marka waa garaanta wareegaysa dowladnimadu ee hadba qof dhiig cusub iyo dardargelin iyo dhaqaajin cusub uu gelinayo. wasaaradda arrimaha dibadda ahmiyad weyn baa sidaynu ka wada dhareegsanahay idinkuna aqoonta u leedihiin ay dalkan u leedahay. waa muraayadii laga arkayay dalka wanaagga gudahaaga ku jira. qof ahaan haddaad caafimaad qabto weji quruxsan baad yeelanaysaa. marka dalku hadduu gudihiisii wanaag leeyahay, wax qabsaday, wax dhaqaajiyey, hawlo qabtay, cidda dunida u tabinaysa ee tusaysaa waa wasaaradda arrimaha dibadda. haddii wadamada dibaddu inoo imanayaanna albaabka ay ka soo gelayaan ama muraayadda ay naga daawanayaan waa wasaaradda arrimaha dibadda. marka wasiirka, wasiir ku-xigeenka, xogeyaha, safiirada iyo shaqaalahaba kala duwan inta aad qurxisaan wasaaradda, wanaajisaan, fariinteenna dunida gaarsiisaan ama dalka gudihiisa soo gaarsiisaan waxa dunida hareeraheeda ka jira ayaa ay tahay dalka dhan wanaagiisu. marka ahmiyadda weyn ee halbowlaha ah ayay wasaaradda arrimaha dibaddu leedahay. oon isla wada qirsannahay oo dhammaanteedna aan ka dhareegsanahay. idinkuna haddaa safiirada tihiin iyo diblomaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta kala duwanba aan usii fara dhuudhuuban tihiin, dadka badankiisana uga aqoon badan tihiin. xaalad baa lagu jiraa geeska Afrika maanta. aad moodaba Soomaaliya inay tahay dalka ugu roon ee ugu ladan wadamada geeska guud ahaan iyo inta ka talowsanba. maanta halkii shalay iyo daraad iyo dhowr sanadood ka hor aan joognay waa ka fiicannahay. meel wanaagsan baan maraynaa. haddii Soomaaliya burcadbadeed lagu xasuusan jiray
waan ka soo gudubno shaqooyin fara badan ayaynu qabanay haddii lagu xasuusan jiray argagixiso meel wanaagsan baynu waa ka soo gudubnay wax badan baynu ka qabanay meel fiican baynu maraynaa fariinta dunida cidda gaarsiinaysaana waa wasaaradda dunida u waramaysa madalaha caalamiga ah ee laga garnaqsanayo uga waramaysa marka shaqo weyn baa runtii idin taalla duruufaha jira iyo awoodaha aynu leenahay ee kooban iyaday jiraan inaynu wada xasuusannahay haddana diblomaasiyiinta qaranka metelaya ee calankii metelaya dibadaha jooga iyo wasiirada iyo waxyaha kala duwan ee wasaaradda ay u soo gudbinayaanba waxaynu ku wada jirnaa halgan ay tahay dalkeenu siduu ahaan jiray inaynu ku soo celino halku joogi jirayna inuu dunida ka joogo run ahaantii maantana meel wanaagsan maray waa run xilli doorashooyinu hadda ku jirnaayo xildhibaanna iyo doorashooyin lagu mashquulsan yahay haddana doorkii aad lahaydeen waa mid muhiima oo taagan oo intii awal uu joogay inaad kasii labalaabtaan meel dheerna gaadhsiisaan loo baahan yahay dadaal halgan ah oo aan la nasanina inaynu ku shaqayno oo wadaniyad iyo shucuur mas-uulnimo ay saaran tahay taana la idinkula dardaarmi maayo waan ku kalsoonahay run ahaantii inaydun door kaa ciyaari kartaan waayo aniga qudheyda ama madaxweynaha aan ku matalayo safarro dibadeed ama shirar gaari khuseeya aan u baxayo wasaaraddu ahmiyadda ay leedahay waan ka warqabaa dal kastoo dibaddoon tagana run ahaantii hadday shaqadu iga dhammaato waxaan ku dadaalaa inaan safaaradda iyo safiirka aan soo arko la shiro shaqaalaha duruufaha jira ogaado waxaan leeyahay maanta meel fiican bay noo maraysaa 2017 markii cabdisalaan hadliye iyo yuusuf garaad ay xilka la kala wareegayeen goobjoog baan u ahaa dhowrkii wasiiroo u dambeysayna waa maanta ugu dambeyso waan goobjoog baan u ahay mar walba wasaaradda waxaa ku soo kordhiya meesha 4 sano iyo badhkii la gaarsiiyey run ahaantii waxaan isleeyahay mas-uuliyiinta cidda ugu dhowaad ka mid tahay marka waxaan leeyahay cabdisiciid soo dhawow adiga wasiir ku-xigeenkuba xilli kooban oo ay tahay inaynu xaqiijino doorasho la dhammaystiray oo golaha shacabka iyo aqalka sareba ah dariiqeedii marta doorta madaxweynihii dalka hagi lahaa ama u cusboonaysiiya madaxweyne farmaajo xildhibaanka Soomaaliyeed bay shaqadaasi hortaal marka hawshaas iyadoo lagu jiro ayaad ku soo beegantay waxaan isleeyahay meel fiican dhinaca amniga oo khibrad u leedahay iyo siyaasadda geeska Afrika ka socota tacarbeed ta dunida daafaheeda kala duwan in xaaladda aan ku jirnana si fiican aan ku kalsoonahay in loo tabiyo iyo shaqooyinka fiican aynu qabanayno arrimaha geedi socodka doorashooyinka iyo halkay tahay inaynu gaadhno iyo dowhabeynta amniga iyo arrimaha dhaqaalaha guud ahaanba waxa kaloo oo hambalyeynaya oo leeyahay u sii ducaynaya ilana qabtaan walaalkeen maxamed cabdirasaaq oo mas'uul muddo dheerna isnaqaanay intaanu xilka siyaasadda qaban ka hor aanu ka wada shaqayn jirnay meelo kale aanan khibraddaadii iyo aragnimadaadiina mar walba diyaar u nahay inaad nagu kordhiso walaalka wasiirka arrimaha dibadda ay cusub ku kordhiso waxaan leeyahay wasaaradda arrimaha dibadda guuleysta dhammaantiin iyo bahda wasaaradda iyo diblomaasiyiinta qaranka Soomaaliyeedna ha guuleysto ilaahay idamkiisana imtixaanka doorashooyinka waa ka bixi doonaa waxayna inoo ahaan doontaa dardargelin cusub oo dalka inaynu meel dheer gaarsiino halkaad awal horeba soo gaarsiiseen